on left aad baan kugu mahadinaynaa waqtigaada qaaliga ah inoo hortay halganka iyo jihaadka aad ku jirtaan kulli ummadda Soomaaliyeed meel kasta waa idin la garab taagan inta wanaaga jecel aniga laba su'aal baan ku weydiinay oo aad u fudud midda hore madaxa maqlaysaa wanaagsan tan hore gumaysiga xabashida Ethiopia waxaan ognahay dhaqaale iyo taageero inaan hayno waxyaalaha ay ku ordiyaan ay tahay taageerada badan ay ka helayaan wadamada reer galbeedka Mareykanka baa ugu xog badnaaday xorriyad markaad u diraysid halganku qoray kaliya ma aha dagaalka diblomaasiyadeed iyo loobinka adduunyada reer galbeed kulli waa joogtaa waan filaya wadamadan dadku waxay u loobin karayaan waxyaalaha inta badan hadafka lagu gaaray kamid tahay deegaanka ogaadeen inay khayraad badan baa ku jira waynu ognahay oo la socono idinkoo fursadda ka faa'iidaysanaya gaaladana interest waxa la yiraahdo yaqaanaan iyo muxuu ahaayay waxa ay qab waxaasan ku qabanaya halganka xagga loobinka iyo inaad muxuu ahaayay wax ka dhaadhicisaan wadamadan reer galbeedka ee baritaariga garab taagan Ethiopia gumaysigan xun intii qoriga garanaya taa xaggay idin maraysaa nofais waa jeclaan lahayd dagaalka qoriga kaliya ma ahan tan kale xagga midnimada iyo isku keenida inaad kasbataan dhammaan shacabka ogaadeenaya xaggay taasna idin maraysaa labada qodob adigoo mahadsan anagoo kaaga mahadcelinayna waqtigaada qaaliga ku soo middan hore shay kala horeeyaan aad mahadsan waa si mahadsan tahay waa su'aal meesha taalo weeye cadowga Ethiopia taageera inay dagaalami jiray maxaad ka qabateen weeye horta sidii hore isku wanayn oo meeshaan maanta kala dirro taageerada ka helo ee banaanbaxa ka yimaado ee aqoonta ka timaado ee saxaafadda ka timaado waa guriyihii Ethiopia laga taageeri jiray waan kula dhex dirayna waxaad ogtihiin baarlamaanka Mareykanka muxuu ahay 10 sano u dambeysay 3-4 jeer in hearing la keenay ogaadeenay ku saabsan oo hoos issue ay ka ahayd geeska Afrika oo islaamtii hore ee madaxa fiiqnayd waaga joogtay ay ku qasbanaatay inay goday tagto oo tii caasha gardaxda ay goday tagtay haweeneydii kale ee geeska Afrika meel saaray oo iyadii oo la fikirdareen oo saxaafadii isugu jawaabnay oo hardan badan ka dhacay wadatii marka reer galbeed waxay yidhaahdeen Ethiopia lacag baa laga siin dadkan lacag siiya askar u qora baawirka wax ka siiya Soomaalida lama caburi karo jeelka lagu ridan karo wallahi baan joogin marka wax sameeya bay leeyihiin marka iyaguna waxay manasoo wuxuu yidhi hala siiyo muddo hadal baan ogolaan laakiin horta waan la diriri Soomaalidan weerari qabaayil baan isugu diri jabhadaha ka dhex samayn waxaan ka dhex samayn liyu boolis dhulkaan la diriri idaacada Soomaaliya Sayd Maxamed baan kaaluutaagi adduunkan isku carragadiy sidii uu yiri ku socon waa adduunku oo la baadoobaysay taas marka reer galbeed iyo Ethiopia waxay isla qaateen Soomaalidu malabkan anaga shushwaadana qartaagno sidii qumbilaagi sidii haadi tajiyada saarata madaawon Ethiopia taayuna Soomaaliya taas ugu fiirsanaan sida kama aqbalay waxay ku khasbanaatay Ethiopia inay xabar soo weerto oo herda baan galay dagaalka waa in taariikhyaanka Soomaalida xusaan weeyaan markay xamar soo gelisay oo lafna dagaalkii ugu weynaaday ku qaatay dagaalkii ka dhacay wardheer baan ridnay weydeen askarta Ethiopia ku jirtay abaaytii ku qaban gaadnay dagaalkii waxaa dhacay xoballe waxaan u aaraynay baydhabo iyo iidaali iyo xamar gelitaankeeda waan ka aaray Ethiopia rigtan sijil maxkamadii Soomaaliya harrido laakiin iyaga way aaday inay Djibouti kula midowdo oo kula heshiisoo tilaado bilaa calaykum waan xarreeyay abaftura waxaan ku qasabnay marka hardan ku qaban meel soo maray waxaa weeye marxalad hadda lagu qasbay dadka Soomaaliyeed in la dejiyo iyada galbeed ka qasban yahay dadka xasad wala mari waayo iyada burcad bayaan leeyahay afar wiil oo Soomaaliya laga mari waayo dad oo laba qoriyo jajaban oo ka yabo taxriga Soomaaliyeed oo dawlad leh oo ku wareey badan iyo khayraadkayga iyo juqraafigayga
ما يلا يمكن لا فرصة حمارة كذا اللي صار هذا كذا بس سمعنا الناس محلنا markii maraakiibtii reer galbeedka meesha marayeen jamhuuriyadda soomaaliya la keeno oo nin ingiriis wakiil laga dhigo oo lasoo dhex fadhiisto oo igaada dhan loo soo xaaqo oo africa oo dhan meesha taga la yihahdo oo la garab taago oo london mid lagu qabto oo turkiya uu lacag bixi la yihahdo oo lasgara orday ka lifto marka wax badan baa isbedelaya hardan badan baa anaguna ka galaysa galbeedka wadahadal baa hadda socda etoobiya ku marmarkiyataa lacag bay geliyeen wadahadalka kibirkay lacag geliyeen dagaallo badan baa jira oo deerti game oo ka socda muxuuha geeska africa oo lisleeyahay soomaalida ha la badbaadiyo etoobiyana ha la badbaadiyo laakiin waa isqaban lahaw laba biiloo midin buuxsan wey ama ka soomaalida buuxi ama ka etoobiya kolka waxaan qabnaa inay iman doonto ajoog heertaada kala maro dagaal doodeer baa noo dhaxaysa ingiriis baanu qabsanay ingiriis waxay dhaheen taariikhda hadda anagu khaladnay iyagu baa saxdaan eritreanka iyagaa saxda nagu dhehen eritreanka iyagaa sax marka aniga wuxuu yidhi nin walaalkii ii hiiri iyo hoyga laabaday walaalkii soomaaliyan baan hiir ka lahay oo qabraha iyo ku mashquulsan iyo isagu eriyey iyo wax aan maxal lahayn iyo tuulin meeshii ay madaxa ka noqon lahaayeen bay burburinayaan haddii maanta ay dadka soomaalidu iyagoo duruuftaas ka aba ay magarab taagnaan lahaayeen si fiican baan taariikhda usixi karaa haddana way isfaxmaysaa marka reer galbeedka waxaan is leenahay marar badanna dagaalka way nala galeen oo markii aanu shiinaha iyo qolyaha isleena dagaal weyna lagu qaado reer galbeedka waa ka joogsadeen dhanka kalena markii arkeen inaan nalahayn karin etoobiya talooyin iyo lacag siiyeen balkana ku dag hadda wejigii saddexaad wadahadal ku day weeye waynaasi doonaa waxa kasoo baxa aqoonyahanka soomaaliyeedna goobjoog buu ahaan waana la tashanaynaa dad isku kalsoon oo qadirada inay soomaali leedahay aaminsan baanaa midnimada dadka soomaaliya waa muqadas ninkii halganka ogaadeen waxaanu u qaadanay etoobiya ooda laga tiri waay dul soomaaliyeed ma haysana ogaadeen rinji waa qayb kamid etoobiya ogaadeen iyo heshiis ku qoran yahay ingiriis ka qaadanay ogaadeen yaan turkidii iyo masaari kala wareegnay ogaadeen axmaarada aad ka qaadi weyday muxuu ahaaye documentigaan helena magacaasi watay inagoo dagaal laynagu qaadayna war qoladan soomaaliya waa qola wareegsan qabyaalin bay daba socdaan kaasi waa soomaali afrikaanka oo dhan wada dhasheen baa layidhi mauritania iyo muxuu ahaaye senegal iyo mali iyo niger iyo nigeria iyo cameroon iyo qabaa'il inta ku wada firsan baa jira marka waxaa la yidhi qabyaalada ismiga iyo nationality political nationalities ma laha way kala duwanaan karaan oo waxaa gobolada oo faransiiska muxuu jarmalka oo faransiis la raaciyey nimankan manta australia ku nool oo jarmala kuwa jarmal oo poland ku nool marka adduunka waa inala diriro reer galbeedka dariyooda marna iyagaa nationalismka bilaabay nationalism hiribiskoodii iyo suugaankoodii iyo kasarkoodii iyo isku dagaalay dagaal koobaad iyo kii labaad iyo riday oga damaantay ka dargeen iyagii waxay dhaheen qofku waa inuu xor ahaado oo ismgiisana la ixtiraamo maasirkiis marka tiiray la soo aadeen meesha afrikaanku waxayna dhahayaan soomaalida inay qabyaalo daba socota maaha amayeen waxaad samaysaa adoo mahadsan actually dadka soomaaliyeed taa wuu ku midaysan yahay wuu ku midaysan yahay taa xoroobo annaguna magacooda qabiilkooda iyaga wax macno u sameeyaa amayeen adoo mahadsan weeye exactly su-aashii lagu weydiiyey jawaabteeda usoo noqon ayaan kugula talin lahaa adoo mahadsanti dadku dee jawaabta uga faa'iidaan maxaad ka samayseen dadka degan dhulkaas soomaalida etoobiya gumaysato midnimadooda iyo allaha maxaad ka qabateen iyo dadku idin raacsan yihiin marka waxaan jeclaan lahayn inaad su-aasha jawaabteeda si toos u abaarsadaba thank you so waa mahadsan tahay dadka soomaaliyeed aad buu taageersan yahay halganka ogaadeenaya caagaga aanu gaadhnayna si fiican bay nooga taageeraan dibaddana wax fiican baa nooga qarsoomay goboladan galbeedka siixiga 2005 wixii ka dambeeyey hawlo waaweyn baan ka qabanay aqoonyahankii iyo siyaasigii iyo wadanigii soomaaliyeed dhulkaa joogay wax badan iska ognahay baa jira xasbi ma jirto midnimada xagga dadka soomaalida ah etoobiya dhexdeeda yaa been akrida oo dekaalka keliya ay geli karta qole ogaadeena dagaalanta bee hebel kuga jiraan waxaasay maaragtay ogaadeenta sii kala saartay qole hebla baa sii daran waxaa etoobiya akrida laakiin cadowgaagu markuu been aaminaa ugu fiican
ugu wanaagsan xalada inu doonaan marka midnimada dadka Soomaaliyeed waa meel fiicanna waan soo gaarsiinay meel fiicanna waan usii wadnaa wuuna noo furan yahay golaha siyaasiga iyo golaha halganka inaan bilaabnana waan doonaa dadka Soomaaliyeedna waxay noqdeen hal qowmiyad oo qowmiyada kale Itoobiya ku nool oo hardanaysa oo gacan gudaysa soo martay haddana sida ugu xiran leed marka waagi hore way kala qoqobnaayeen haddana si fiican bay isugu dibadhaceen waa gartay marka laga soo bilaabo aad baan u gartay marka laga soo bilaabo xuduudda Soomaaliya Djibouti iyo Itoobiya isugu tagaan ilaa iyo xuduudda muxuu ahaayey Soomaaliya iyo Itoobiya Kenya isugu tagaan dhulka intaa aadka u ballaaran galgantaan ma jiraan maanta dhul ballaaran oo aad noo tilmaami kartaa oo jabada waa la ka talisay iyada ma jiraan dhulkaas dhul badan bay ka talisaa oo Itoobiya maraakiibta waaweyn iyo meelaha istaraatiijiga ee ciidankeedu xooga ku joogan bay joogtaa wuuna noo kala bedelnaa oo marar badan anaga deegaan badan qabsana marna iyagaa dib nooga riixa marka dhul badan oo ka talino oo ay nagu og yihiin oo Soomaaliya joogto oo reer guuraaga joogo oo beeraley joogto oo inoo yaala muxuu ahaa wixii baa jira oo ay og yihiin baa jira sidii kusoo duuraan nafrada la iska mariga dhulka la iska afli marka annaguna habkaan la dagaalanay Itoobiya waxaa kamid ahaa maadaama oo anti aircraft badan aan haysanin inaan saldhigyo waaweyn oo dhismayaal waaweyn inaan samayn si aan loo burburin laakiin gumaysiga waxaan ku kalifnay hab casri oo ciidan firisan oo meel walba kula dagaalama oo dhaqdhaqaaqiisa iyo xorriyadiisa iyo hal-abuurkiisa iyo isgaadsiintiisa la dagaalama marka habkaasaanu kaga adkaan su-aal kale oo loo baahdo inaan ku weydiiyo Soomaaliya beri hore aad baan iska taageeri jiray oo dowladda Soomaaliyeed baa aad taageeri jirtay ma jiraan dalka Soomaaliya intan aan ahayn dadka dhulka Soomaalida inta gumaysato marka laga soo tago dhulka Soomaalida kaleeto gudaha saldhigyo kulleed ma jiraan oo laga taageero saldhigyo aad kulleed ku leedahay maya saldhigyo cad meelaan ku leenahay ma jiro laakiin dadka Soomaaliyeed ma taageersan yahay gobol Soomaali degto Jamhuuriyadda Soomaaliya kamida iyo xataa kuwa dalalka kale ku nool Djibouti NFD meel Soomaali degto aan laga taageerin ma jirto talifyo dalqoodiya waa laga qaban laakiin shacab badan baa raaca oo ciidanka taageera oo naxawadiya oo nakaalmeeya oo wax noo qariyo wax noo gudbiyo oo kusoo degnaa oo soo soconaa oo soo soconaa oo leenahay oo wax badan oo cid walba naga qarnay marka dadka Soomaaliyeed haddaan idhaahdo taageero waa ku haysanaa laakiin talifyada maya aad baan kuu soo dhaweynayaa boqolkiiba boqolkiiba waa ku mahadnaqaynaa dib baan kula soo xiriiri doonaa sida iyo